Soomaaliya oo aan jirin tan imika aad ka hadlaysay Muqdisho iyo Koonfur oo aan jirin bay Somaliland jirtay as a country hadda su'aasha dhabaysatay soo degarmist more than 30 countries baa aqoonsanaa Somaliland inay wadan cusub oo xorriyad qaataday tahay soo degarmist xuduud bay lahayd soo degarmist caalanka Soomaalida ee maanta xamar yaala ee buluuga ee xidigtu ku shaabadaysan tahayna shan gees buu leeyahay shantaa gees shan wadan maaha gobollo wadan kale ka tirsan shan wadan ayay ahaayeen shan wadan Somaliland mid bay ka mid ahayd Soomaaliyana mid bay ka mid ahayd saddexdii kalena waa kuwa iska tegay soo degarmis Somaliland shaqo goonihi kama saarna in la isku hayo Soomaali shaqo goonihi kama saarna taasi waa wax loo siman yahay way soo degarmis maalinta la weydiiyo waan hadal baan ka jeesay intii investment la gelinayna waan gelinay haddaan nahay reer Somaliland caalankaasa ka marxaatay inaan wadan gooni ahayn caalankaasa ka marxaatay maxaan ku rahay in adduunyada aqoonsanay wadan gooni caalankan buluuga marka waqooyiga laga keeno koonfurta la keenay caalan noocay bay koonfurta lahayd oo caalamku yaqaan maadaama laba doon kala duwan ay ahayn on your own account xisbiga SYL caalan buu sameeyay xisbiga SYL xisbiye kale ayaa jiray Somaliland iyo maxaan ku rahay Italian Somali xisbiye kale ayaa jiray حسب كمان لا عالم نوعين لهاي عالم كو قنصيه جوابت مياد يسين وقتك ده واحد رال نوع بروفيسور waxaan rabaa inaan ogaado calan baan keenay baa leedahay buluug waa shan xidigood buu leeyahay hadii adigu aad dawlad ahayd hal calan leh shan dawladood kala duwan lahaa dawladaha kala calamadoodii calan noocay bay koonfurtu lahayd xisbi ma sheegayo xisbiye badan oo calamo la jira waqooyiga laftiisa xisbiye kala duwan ka jira waatan ku soo wada calamay kala yeelan karaan soo dawladda Soomaaliya calankii lagu yaqaanay ee koonfurta ay madax xarunta u ahayd calanku wuxuu yaqaanay markaa waxaan ku yiri hadayada si wanaagsan ii dhigay ka musay ku dhageysanaya ballan Somaliland saddex waxa jiray xisbiyo waaweyn SNL NUF USP xisbiye kala gooniyahay community kala gooniyahay ku jiraan anigu family-gayga waxaan ahayn NUF USP ma aan ahayn dadka waxyaabaha dadku ay iska samaystaan soo dadka Soomaaliyeed USP ma aan ahayn NUF baan ahayn laakiin caalamina dawlad mina ahayn hadda degayso soo degarmis dawladnimo ayay saddexduba ka shaqeynayeen horta in Ingiriiska dawlad laga qaato xornimada kama shaqeynayeen in Muqdisho la xoreeyo taasi shaqo kale dadkii kale u taale shaqadii halka xisbiyadii kale in wadankan la xoreeyo waxay taasi ku tusaysaa inay ka gooniyahayd Somaliland Soomaaliya inay ka gooniyahayd xisbiga USP iyo xisbiga SNL iyo xisbiga NUF shaqadoodu waxay ahayd Ingiriiskii in laga xoroobo deetana marka taalan dhameeyo laga wada hadlo deetana sidii unionkii ummadii Soomaaliyeed ma aha Soomaaliya iyo Somaliland shantii la isku keenay ayay shaqadu ahayd two stages ka caynkaas ah stage kale way ku dhacdo Ingiriiska waa laga tagay timacada waa kiiri ka nasiib ka nasaar sidii baa gobonimo lagu qaatay xisbiga SYL ku markaa iyagu waxay ahaayeen xisbiga qura ee ah national level ka sare ah ee Soomaaliya oo dhan gaarsiiyo Ethiopia xitaa uu ka furnaa xisbiga dir dhab xafiif ku lahaa xisbiga SYL ku Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo Urdoox ya oo galbeedka ka yimid iyo halka ka furood maqaaxi Urdoox baa laga furay maxaan ku raay xafiis SYL-ka looga furay marka sentimentka sare Soomaaliya oo dhan hal la isku keeno Ethiopia Djibouti hal la isku keeno calanka marka SYL ay wadaya calanka buluuga xidigtu dhexda ay kaga taalana wuxuu mathilayay marka laba ra'yi buu mathilayay oo la isku keenay ra'yiga in la garto inay jiraan wadamo kala gooniya oo Soomaaliya oo kala gooniya waa mid particular ah iyo ra'yiga shantaasi kala goonida haddana waa Soomaaliya in la isku keeno ay mid noqdaan calanku labadaaba spiritka labadaasi way ku jirtaa hadii kale wuxuu noqon lahaa calan buluug ah oo aan xidigtu ku dhex jirin ayuu buu noqon lahaa aniga sidaas ay leegtay right you entitled ra'yigaaga waan soo dhaweynaa kaaga mahadcelinayaa su-aashan ku weydiiyay waxay ahayd haddii waqooyigu calanka buluuga uu lahaa koonfurtu calan noocee bay lahayd colonialkii markuu wadanka joogay ama ka tagay reer waqooyiguna calan gooniya may lahayn reer southkuna calan gooniya may lahayn soo laba dawladood isku mid xaga keentay marka waxa weeye labada dawladood ee isku keenay laba dawladood waxay u noqdeen laba maalmood oo kala gooniya ay xorriyad qaateen Somaliland waxay qaadatay xorriyadda June 26 1960
4 days kadibna whether it is 24 hours na noqoto iska daa 4 days ayay qaadatay soo degarmays laba wadan oo kala gooniyo waqti gooniyo kala qaatay ayay noqdeen laakiin waxa hoos in laga xariiqo u baahan hadalka adag oo kaama goy raal lahow in waqooyiguna uusan calan lahayn koonfurtuna calan ay lahayn gooniyo caalamku yaqaan laba calan oo gooniyo kala taagan taa inta waan kugu raacsanahay taas waxay salka ku haysaa dawlado isku yimid oo heshiiyey inaysan meesha ka muuqanin wax ka muuqda waxa meesha ka muuqda dad shacaba oo deegaan iyo dad iyo af iyo luqadooda hagaagay oo ninkii haystay oo gumaystaha uu ka baxay oo dantoodii gartay maya waxa weeyi laba meelood calankan adigu ku dhegsan tahay anoo ixtiraam taas calankani muu noqdeen calan wadan qura oo dadkii oo isku soo noqday un muu noqdeen calankani wuxuu noqon lahaa calan blue for example amba white wuxuu doonaa noqdo color gole leh oo xidigtaas aanay ku dhex jirin xidigtana waxay markhaati ka tahay inay 5 wadan oo Soomaaliya jiraan ay wad ka tahay gabaygay ku jirtaa distooraday ku jirtay la hore loo qoray inay different ay tahay maxaan ku rahay countries laakiin Soomaaliya ay ku nooshahay gumaysu kala qaybiyay sida la isku noqon lahaa Somaliland marka lamay qaadan xorriyadda wadamadii kale maalin gooniye ay qaadatay taasi waxay calaamad u tahay inay wadan gooniye tahay oo tahay Soomaaliya ku noolaato laakiin ay wadan gooniye tahay Soomaaliyana calan gooniye ma lahayn laakiin iyaduna waqti gooniye ayay qaadatay gobonnimadeedii soo degarmis isku imaashuhu marka wuxuu ahaa iyadoo halkana dan la mooday in la isku tago halkana dan la mooday in la isku tago sidaas unionkii ku abuurmay dhibaatooyin kale ku hoos jiraan sida integrationka loo samaynayo laakiin sidaasay sentimentka saraaxay tiibaa gudhay walaal way gudhay marka su'aasha la isweydiinaya waxa weeye aniguna su'aal baan doonay halkan soo galiyo su'aasha la isweydiinaya waxa weeye Muqdisho iyo Soomaaliya maxay ugu dhagan tahay Somaliland maxay ugu dhagan tahay why maxay ugu dhagan tahay su'aasha la isweydiinaya aan jawaabteedii haynin taas weeye laakiin adigu amatid qof anu su'aasha igu qosayso waxaan jecel yahay dadka inay dhageysanayaan